السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan idinla wadaago qiso oo maxaa la dhahay qiso cajiib ah la dhihi karaa qisadan maxaa la dhahay waxay ku saabsan tahay sida yacni bini aadanka haddii asxaan la isku sameeyo asxaankaas yacni ilaahay qofku uu abaalmarinayo ayay ku saabsan tahay. soo qisadan maxaa la dhahay waxay ku dhacday wiil oo Indonesian ah oo u dhashay wadanka Indonesia. wiilkan oo magaciisa la dhahaa Adia Baryoga. kadib wiilkan maxaa la dhahay wuxuu iska wiil miskiin oo faqiir ah oo xaaladiisa maadiyan iyo maxaa la dhahay oo hooseyso oo dhaqaala. maalmaha kamid ah wiilkan maxaa la dhahay isagoo salaad ka soo baxay salaad subax oo wuxuu la kulmay maamo waayeel ah oo lug xanuunayso lug maxaa la dhahay dhiig ka socdo oo ka dhutinayso la kulmay. kadib waxaa dhacday maamadii inuu istaagay uu wareystay oo dhahay maxaa la dhahay maxaa saacadan xaggee u socotaa adigoo xanuunsan oo maxaa la dhahay lugtaada saan ay tahay. markaas waxay dhahday aniga waxaa u socdaa inaan nolol maalmeedkayga aan raadsado oo waxaa waay maamada dadka oo qashinka yani maxaa la dhahay caaga ka babaxsado yani caagag yani cabitaanka lagu cabay iyo waxaasay qashinka ka baxsataa kadib way sii iibisaa. waxay dhahday aniga waxaasaa ka shaqaystaa soo maxaa la dhahay subaxnimadan waxaa usoo baxay waxaa waay inaan nolosha soo dhacsado. marka wuxuu dhahay haddii aan ku caawiyo ka waran. waxay dhahday maxaa la dhahay okay waa caawin kartaa. wuxuu dhahay gurigeyga ku geyna adigoo saana maxaa la dhahay meelaha ma dhicdhici kartid anaan ku caawinayo soo bax. wuu soo wada gurigiisu keenay xaaskiisu u keenay xaaskiisa muxuu ka codsaday maamadii inay caawiso. maamada marka xaaladeeda oo caafimaad oo lugta yani dhibaatada ka haysata yani dhaqtare u baahan tahay oo xaalad oo maxaa la dhahay qof oo caadi normal ma ahan. caawinaad yani waxay u baahan tahay oo zaa'id in la caawiyo isbitaal la geeyo dhaqaalo wax badan ay u baahan tahay. wiilkan asaga miskiin waayo waxay ma awoodo oo qof asagaba shaqaysta ma ahan waa wiil faqiir ah asalkiisiba. kadib dadka maalinta iska baxa waayo oo nolol maalmeedkooda maxaa la dhahay soo dhacsada. wiilkan dadka waxaa maalintii iska baxo soomaalida alyoom ya wax saas camal ay u yaqaanaan dadka maalintii yani soo raadiya magaalada soo warwareega oo shaqo soo raadiya maalintaas wuxuu soo helana soo shaqaysta hadduu soo waayana maxaa la dhahay gurigiisa kusoo laabta. laakiin maalintaas ilaahay ayaa la jiray oo wuxuu la kulmay nin kitaaba iibiyo la kulmay. kadib maxaa la dhahay ninkiyaa wuxuu dhahay kitaabadan qaad soo wareeji 100 xabo adi maxaa la dhahay maalintiiba waa inaa ka gadaa 100 xabo haddaa gadid maxaa la dhahay lacag fiicana ku siinaa. adi ilaah meeshaas faraj ugu furay kitaabadii maxaa la dhahay soo wareejiyey 100kii xabo way usoo dhammaadeenba maalintii lacaguu kasoo helay. maamadii ayuu dhaqtar ku geeyey maamadii maxaa la dhahay lugtiya laga soo dhayay maxaan ku dhahay maxaa la dhahay daawooyina lasoo siiyey gurigiisuu kusoo celiyey. wuxuu dhahay gurigaaga kuuma celin karo maadaama qofku caawina aadan haysanin xaaskayga ayaa ku caawinaysa oo caruur uma joogto gurigeena joog. kadib adin meeshaasaa ilaahay faraj ugu furay oo ninkii maxaa la dhahay ninkii ku laabtay dhowr jeer 2 maalin 3 maalin. maalintii ugu dambeysay ilaahay maqaadirtiisa ninkii maxaa la dhahay lacag 10,000 ah oo lacagta wadanka laakiin dollar u dhiganta $800 ayuu abaalmarin u siiyey. uu dhahay lacagtan maxaa la dhahay abaalmarin ayaan kuu siiyey wax shaqadiisa ka baxsan ayay ahayd. ninkii uu aamini waayey subxaan allah. kadib xaaskiisa markuu u keenay lacagtii xaaskiisa iyadana waxay dhahday macquul ma ahan lacag 10,000 inaa hal maalin maxaa la dhahay uu qof iska kaasoo siiyo ila mishaarkaadii waa lagu siinaya yoomiyan lacagtaada waa soo qaadanaysay adig. kadib naagtii maxaa la dhahay wuu qanciyey lacagtii wuxuu sameeyey. wuxuu dhahay anaga nolosheen wuxuu dhahay ebra ahaynba xitaa waxa anaga duqdo ee ku seexat iska dhaafay anaga xitaa wuxuu dhahay waxa ku seexana xitaa ma haysanin uu dhahay waxa seexan jirin uu dhahay roog qalalan yani joodare wala sariir wax noo yaalay ma lahayn uu dhahay. kadib lacagtii alaaba kusoo gadanay maamadiina maxaa la dhahay iyadana sariirta usoo gadnay. waxaan dhahnay khalaas anaga nala noolaa oo anaga nala joog ilaa iyo maxaa la dhahay ilaa noloshaada yani inta ka dhiman 90 duqdu waxay ahayd markaas 90 jir ahayd waayeel yani maxaa la dhahay yani heerka waayeelnimada ugu dambeysay ee 100ka wax yar bisa ugu dhignaa adi. kadib wuxuu dhahay maxaa la dhahay lacagtii waxaa go'aansada uu dhahay kala bar yani inaa maxaa la dhahay sadaqa ku bixiyo maadaama oo meesha caawinaada duqda waayeelka caawiye ilaahay faraj igu furay lacagtii waa qaaduu dhahay
maqaayadan wuxuu dhahay maxaa la dhahay aan ka rukumay maalin kasta yacni 30 qof cuntadooda aan maqaayad inaan kasoo qaado 30 qof cuntadooda aan siiyo dadka wadooyinka seexda oo guryaha aan haysanin dadkiyaa wuxuu dhahay haddana caawinaad aa u fidiyey wuxuu dhahay anigii wuxuu dhahay maalin kasta haddaa saa u dhaqaaqaba subxaanallah khayr unbuu ilaahay ila kulan siinayo dhahay noloshayda dhan way isbedeshay caafimaad ahaan xitaa wuxuu dhahay waa u xanuunsanaa oo waxyaalo badanaa dareemayey xitaa naagteeda wuxuu dhahay uur iyo yacni uur xitaa iima qaadi jirin adiga subxaanallah waa caafimaaduu dhahay ilaahay naagtiisa maxaa la dhahayay uuruu ilaahay maxaa la dhahay uwaduu ilaahay u siiyey yacni ay heleen labadooda gastii uuray yeelatay way dhashay adiga wuxuu dhahay maalintii farajkii noo furmay ilaa il'aankan dadka wuxuu ku jiraa hadda ugu taajirsan yacni wadankiisa dadka ugu taajirsan ku jiraa laakiin asal ahaan wuxuu dhahay aniga noloshayda ebre eeduu dhahay ilaa ila kulanka oo aan la kulmay maamada subaxii aan caawiyey wadadaas oo ilaahay uu ii furay caawinaadaas anna aan caawiyey anna ilaahay wado kale uu ii furay albaabkii wuxuu dhahay si uu iigu furmay al'aankan wuxuu dhahay duqdii way dhimatay maalinta intay dhimanin ka hora ay maalin waxay dhahday kaale ii imow waxay idhahduu dhahay maxaa la dhahay 3 jeer ee dhabarka iga dharbaaxday dharbaaxida aniga soomaalida le inay ka saayana u malayn jiray laakiin waa wax bini aadanka dhan ay ka siman yihiin waxay ugu dhahduu dhahay adduunyada waxii qalbigaada kusoo dhaca ma weynay sida ilaahaduu dhahay aakhiradana maxaa la dhahay jannadu ilaah kugu siinaa mucjizooyinka aa la kulmaa waxay tahuu dhahay maalin maalmaha ka mid ah anigoo guri weyn hortiisa maraayo aan isdhahuu dhahay gurigan weyn haddii adiga aa lahaan lahayd ilaahay amrikiisa wuxuu dhahay maalmo kadib gurigii weyn subxaanallah si fudud ayuu ilaahay iigu saqiray oo wuxuu dhahay wax kastoo qalbigii kusoo dhaco wuxuu dhahay ilaa al'aankan waaba helaayu dhahay wax aan waayo adduunyada saaran malahanuu dhahay anigana wuxuu dhahay khayrka meeshiyaa kasii wadaa waxaan furuu dhahay 5 maqaayad oo cunto farii bixinayso maadaama dad badan oo dhibaataysan ay wadooyinka iska jijiifaan oo ay dayacan yihiin yacni baahi iyo duruuf iyo dhibaato badan anigana waxaa go-aansaduu dhahay noloshayda kala bar inaan khayrka ku bixiyo 5taas maqaayaduu dhahay aniga lacag hal kama qaatuu dhahay keliya waxay u taagan yihiin inay maxallaha ummadda caawiyaan besay u taagan yihiin uu dhahay alxamdulilah wiilkan qisadiisa waa qiso ku daya leh waa qiso cajiib ah oo qof kastoo bini aadan ah uu maxaa la dhahayay maanta maxaa la dhahayay asxaan hadduu qof oo ka liita uu arko oo asxaan inuu u samayn karo ilaahay dartiisa horta lambar 1 inuu ugu sameeyo waaye kadibna ilaahay xaggiisa asagaaba abaalmarin ka helaayo soo maxaa la dhahay fiidiyoga sheer gareeya meelo sare gaarsiiya insha allah qisooyin badanna waa idinla wadaagi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh